Maalin waayaha ka mid ah waxaa jiri jiray nin. Waxa uu ku noolaa tuulo u dhow magaalo yar. Waxa uu xoolo ka lahaa dameer. Dameerkiisa aad iyo aad ayuu u jeclaan jiray, waa uuna koolkoolin jiray, waana uu dhaqaaleyn jiray oo wuxuu siin jiray raashin. Laakiin dameerku wuxuu ahaa mid aad iyo aad shaqada u neceb, jiifkana jecel. Ninka tuulada uu deganaa iyo magaalada waxa u dhexeyn jiray war biyo ah oo sii dhex mari jiray marka uu u safrayo magaalada. Sidii caadi ahayd, suuqii ayuu imaaday maalin maalmaha ka mid ah. Waxa uu la kulmay saaxiibkiis, waxaana uu u sheegay in magaalada looga baahan yahay cusbo la'aan ay ka jirto. Ninkii aad u faraxsan ayaa waxa uu u mahadceliyay saaxiibkiis, una duceeyay, uuna ka ballan qaaday in uu bilaabi doono ganacsiga cusbada oo magaaladana cusbo keeni doono wixii ka bilowda beri haddii Alle yiraahdo. Ninkii maalinkii dambe wuxuu soo helay cusbo 12 xabo ah, laakiin 12 kama soo qaadin dameerka awgiis. Waxa uu soo qaaday 6 loor oo cusbo ah. Waxa uuna la soo aaday magaaladii oo cusbadii looga baahan yahayna wuxuu ka helay faa'iido. Ninkii waxa uu ku soo noqday gurigiisii asagoo faraxsan. Maalinkaasna cusbadii uu suuqa geeyay u soo gadantay dameerkiisii asagaba. Ninkii maalinkii labaad ayuu haddana loorkii u yaalay qaaday oo suuqa geeyay, isla sidii oo kale ayay u soo gadantay. Ninkii wuxuu bilaabay hawshii cusbada inuu dardar geliyo, oo in muddo ah ayuu waday cusbadii. Maalinkii dambe ninkii oo safarka ku jiro oo hortii biyaha sii goynayo ayaa dhagax waxa u sabqaday dameerkii, waxa uuna ku dhacay biyihii. Naxdintii dameerkii waxa uu dareemay fudayd ayuu dareemay oo wuxuu yiraahday, biyihii aan ku dhacay waxaan ka dareemayaa fudayd oo biyaha Alle mucjiso badana. Culeyskii ayaa iga yar oo fudayd baan dareemayaa. Culeyskii hayay iyo xamuulkii dusha iga saarnaa waxaan dareemayaa nafis oo biyaha mucjisay ahaayeen. Laakiin soo dameerkay mooday ma ahayn, wixii cusbo u saarnaa ayaa dhalaalay oo biyihii raacay. Ninkii dameerka waday ee safarka ayaa soo orday. Waxa uu fiiriyay jawaanadii, laakiin jawaanadii waxay ahaayeen eber oo wixii cusbo ah ku jiray waa ay dhalaaleen oo waxa ay raaceen biyihii. Ninkiina asagoo maalinkaasi murugaysan oo khasaaray ayaa wuxuu dib ugu soo noqday gurigiisii. Laakiin dameerku wuxuu ahaa mid aad u faraxsan oo dhahaya, Allah wanaag badanaa, biyuhu mucjisay lahaayeen, culeyskii way ka dajiyeen. Maanta anoo shaqo weyn qaban ayaan dib u soo noqday. Alla maxaan biyaha ugu mahadceliyaa, dhib iyo hayo bay la socdeen. Maalintaas maalintii ku xigtay ayaa ninkii waxa uu soo raray dameerkii oo cusbadii. Laakiin dameerka wuxuu dhahayay, Alla muxuu iga rarayaa, anigu waxa iga horeeyay biyihii mucjisada ahaa, ayakaana culeyskan iga dajin doono. Iska kay raro, waa laga dambeeyaa ayuu dhahayay. Markii wartii la soo gaaray, ninkii oo wartii ka baqsan ayaa waxaa isku tuuray dameerkii biyihii. Kadibna wuxuu ku dhex dhacay dameerkii biyihii. Ninkii oo yaaban, xanaaqsan oo la yaaban dameerka waxa uu sameeyay in ay ka noqotay iyo in uu kas iska tuuray oo sidii shalay oo kale oo wax ka raadinaya kala saar la ayaa ciil tacbaan noqday. Maalinkaasna waa soo khasaaray, waxaana ku soo noqdeen gurigii. Maalintii saddexaad ayaa ninkii waxa uu soo raray dameerkii. Saakay waxaa dameerka la saaray 8 loor. Dameerka oo yaaban ayaa waxa uusan dareemin wax culeys ah. Alla maanta wuxuu jiraan 8 loor ayaa la saaray, culeysna ma dareemay. War hadduu rabo sukay wado inta hore saaro, soo biyihii igama dambeeyeen mucjisada ahaa, ayakaana culeyska iga dajin doono. Sidii shalay iyo daraadna dib ayaan u soo noqon doonaa. Markii wartii la soo gaaray ayaa sidii caadi ahayd dameerka wuxuu isku tuuray wartii asoo ka raadinaya nafis. Laakiin maanta maalintii hore waa ay ka duwanayd oo waxa uu la kulmay culeys aad u badan oo culeyskii hore ka badan oo xamil waayay. Ninkii lahaana wuxuu fiirinayaa oo wuxuu leeyahay, adaa biyaha ka joog laga kari waaye, bal maanta ka xabxaabi. oo maanta
waxa saarnaa cusbo maahane. Ninka waxa uu ku soo raray suuf ayuu ku soo raray. Kadib markuu biyahaas ku tuurayna, suufkii waxa uu dhuuqay biyo badan oo aan dameerka qaadi karin. Ninkiina wuxuu yiraahday kuwa aabyeeli maayo gey suuqa. Gey suuqa oo maantaas asagoo biyihii suufkii waday ayaa suuqa la geeyay oo laga soo wareejiyay. Dameerkiina wuxuu ku ahaa mid aad iyo aad maalinkaas u daalay oo tacbaan ahaa. Maalinkaas wixii ka dambeeyay, ninkii iyo dameerkiisii waxay u shaqaysan jireen si caadi ah. Dameerkana dib dambe iskuma uusan tuurin biyihii oo wuxuu ka baqayay culayskii dambe ee maalinkii dambe qabsaday. Sidaas ayaana looga raayay dameerkii oo noqday mid shaqadiisa u raali ah, diyaarna u ah. Waa ku mahadsantihiin fiirsigiina. Ku soo dhawaada toosiyaha ubadka. Fadlan subscribe saar, like and share. Thank you.